saddex labaanada u sheegeen walaalayaal sharcigan inta sharciyaadka maanta na horyaalo horta arrin sahlan ma aha sideedii wixii islaamka xaramay oo manhiyaadka ah haddaan la caddaynin waxyaalaha maaragtay yacni ay dembiyada iyo faaxooshada ka socota haddaan la caddaynin yacni dadkii ma baraarujin kartid kama reebi kartid lama sheegi karo arrimahan waxyaalo markii jinsiyadda markii la soo qaado soomaalida dareen bay qabtaa dareenkaas muxuu yahay soomaali kufsa horta agteeda ceebna waa ku yahay dembina waa ku yahay zinada guud ahaan waa dembi ilaahay xaramay weeye ilaahay azaniyat wazani fajlidu kulla waahidin minhuma 100 jaldatin biquraankiisa ku leeyahay qofka zaani kaas waliba zaaniga oo zaanil muhsanka ma aha zaanil muhsankana waa dilbi mutaysanaya in dhagax lagu dilo marka zinada oo maaragtay oo dadka raali isku yihiin yani marmar waa qarsoonta saas maaragtay dadka ma ogaan karaan saasay arin maaragtay badana yani dembideedii inta badan la heli karin laakiin kufsiga waxaa u dheer qof la dilay jidhaan loo dilay haddana kufsin zinadiin looga dari wey marka walaalayaal sharcigeena ma qabo yani adduunyada qaara waxay khafiifinaysaa ama raalli ku tahay zinada qarsoon zinada raalli isku yahay anaga agteena labadaba waa xaaraam zinada maaragtay raalli laisku yahay imada kaleba waa xaaraam haddii la ogaado ayadan ciqaabteeda ay leedahay middan kufsiga waxaa lala yaabay muddadan dambe soomaaliya waagii hore waxyaalahan ceebaalkan saa uma bannaan jirin aniga waxaan ka shakiyey ma isgaarsiinta isku furantay oo gobolladii dhan ismaqlaayay miya mase dadkii sii xumaaday yani daroogadii balaayada nagu soo badantay maalin kasta waxaa la leeyahay unig yaraa la kufsaday la dilay yani qofkaan gaari ha tahayn qofkaan gaari qofka damacayo aniga ma fahmi karo waxaas cilmo saqiira la dilay leeyahay waana la kufsaday marka horta arrintaan waqti fiican ay ku soo aaday walaalayaal arrintaan waxaa loo baahan yahay baarlamaankeena 11aad sharci ummadan Soomaaliyeed ku badbaadayso sharafteeda iyo maaragtay iyo ammaankeeda ku badbaadahay oo dambiyada fawaaxishada ah lagu mamnuucayo oo yani ciqaabteedii maaragtay meel la saarayo inaan sameeyno diinta islaamka ma faradna fil kitaabi min shay ilaahi subhanahu wa ta'ala saasu leeyahay diinta wax laga tagay ma jiraan lagama xishoodo waxyaalaha xun sheegistood iyo maaragtay dadka ka manhiyaadkooda fulintooda maaragtay ceeb ah ma in haddaan la sheegin see dadka u celin kartaa waa in la sheegaa fawaaxishada oo waxaas waa xun yihiin ha laga jooga in la yidhaahdo way saasa dadka maaragtay maahina waa ka aamusay afka kama sheegay maaha waxyaalaha dadka ka dhalansanaya dhantaa maxay tahay waddamo anigu diin ahaan anigu isku mabda ahayn oo waxaa jira waxyaala aniga agteena dembi iyo fawaaxisho ku ah ayaga dhaxdood ayaga isku banaysteen oo arday ku dhaqmo marka waxay isleeyihiin dadka waxaan markii la soo sheegshago ba wixii la soo wada walaalayaal agteena waxaa dembi iyo fawaaxisho ku anigu waxa la yiraahdo liwaadka مثلا باللواadka waxa la yiraahdaa oo arkeena aad dembi ku ah sheeg ba sheeg wax ka deeyay baa la yiri adduunka qaarkeed waa la iska ogol yahay gabar wax ka deeyay la yiri waa adduunka ogol aniga agteena dembi iyo fawaaxisho bay ku tahay arrintaas maartay waxyaalaha maartay inaan cadeyno ummadeen aan u cadeyno maartay waxyaalahaas ma waxa meeshan loo jeedo waxa loo jeedaa in ummadda Soomaaliyeed sharafteedii iyo diinteedii la ilaaliyo fawaaxishada la sameeynayo la mamnuuco la jaaziyo dadka tallaabo laga qaado qofkii dembigaas galan ciqaabteed inuu mutaysto dalka laga mamnuuco weeye waxa loo jeedo horta sidaan inaan u fahnaa la rabaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin arrintan hadda wasiirku wuxuu noo sheegay in hay'adda culimada soo arkeen waxaan rabnaa sidii labaanada soo jeediyeen guddigan ku wareejinaynaa guddiga waxaan rabnaa in ay wax kasto maanta inta lagu soo jeediyey ama ayaga nafsankooda u arkaan culimada la wadaagaan ka soo baarandigaan arrinta faatirin oo lagu qanci karo wixii dhibaatada dalkan ka jiray oo fawaaxishada ah oo diinteena mamnuuc ku aha oo bani aadamada mamnuuc ku ah oo ay ka soo baarandigeen inay golahan ku soo celiyaan marka walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin sharciga kalan waa qiibinay kan guddiga lagu wareejiyo guddiga waxaan ka codsanaynaa يعني دقدق معها سفي عن أدو سو باران دقدق دينيا إيو معركة بني آدم بعد ميل صو ساعتين نقصوا عليها هذه أظن ما سنتين